إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. walaalayaal saan shala soo tilmaanayba bishaan oo kale weliba gaar ahaan maalmahan oo kaleeto waxaan soo tilmaanay inay dhacday ghaswatu fatxi maka. waxaan raacinaynaa oon dhammaystir oga dhigaynaa nebiga calayhi salaatu wasalaam waa kii cafiska ku baaqay isagoo awoodo inuu ka argoosto. arrintaana waxay ka mid ahayd min makaarimi akhlaaqi nabiyi sala allahu calayhi waaalihi wasalam, akhlaaqda wanaagsan ee nebigeenna calayhi salaatu wasalaam. nebiga sal allahu alayhi wasalam wuu khudbeeyey maalintaa khudbo uu ku caddeeyey in badan oo axkaamta islaamka ka mid ah ayuu nebiga khudbeeyey. nebiga khudbadiisa waxaa ka mid ahayd allaa yuqtala muslimun bikaafir, muslim inaan kaafir loo dilin oon loo qisaasi karin, inaysan gabadha safrin ayadoo maxram aan wadanin, masiirata 3 ayaaminna ayna u safrin meel 3 beri loo socdo ilaa maca dii maxramin. bacda salaati subxi inaan salaad sunna la tukan karin ayuu nebiga sheegay calayhi salaatu wasalaam. salaada casirka kadibna salaad kaloo sunna inaan la tukan karin. nebiga sal alla alay wasalam wuxuu sheegay oo tilmaamay oo khudbadiisa uu ku soo qaaday walaa yusaam yowma aladxaa wa yowma alfitr, maalinka ciidulfitrida ah iyo maalinka ciidul adxaaga ah inaan la soomin. nebiga sal alla alayh wasalam wuxuu yidhi ina allaha qad adhaba cankum nakhwa aljaahiliya, ilaahay subxaanahu watacaala dhaqamadii jaahiliga wuu idinka tagsiiyey. oo waxay lahaayeen caadooyin iyo dhaqamo kala duwan ayay lahaayeen, iyo maalmo ay weyneeyaan iyo maalmo ay dabaaldegaan ayay lahaayeen. markaasuu nebiga calayhi salaatu wasalaam khudbadiisii ku caddeeyey oo wuxuu yidhi ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu idinkugu bedelay yowmu aladxaa iyo yowmu alfitri, labadaas maalmood ayuu sharciga ogol yahay ciid in la sameeyo. nebiga khudbadiisu sii waday wuxuu yidhi waannaasu min aadam, dadku aadam bay ka ahaadeen oy ka soo farcameen, wa aadam min turaab, aadamna waxaa laga abuuray buu yidhi nebiga calayhi salaatu wasalaam turaab iyo cara laga abuuray. yacnii waxaa weye qof qof ka qiimo badan iyo qof qof ka fiican iyo qof qof ka sharaf badan ma jiro ilaa taqwa allahi subxaanahu watacaala. taqwada ilaahay ayaa un lagu kala fiican yahay. annagaa ree hebel ah, annagaa laandheere ah, annagaa ree fulaan ah, annagaa ree ugaas ah, annagaa waxaan ah, ma jirto yidhi nabiga calayhi salatu wasalaam wannaasu min aadam wa aadamu min turaabin. arrintaas waa dhaqan dadkeena inta badan ay mataqaanaa aynan fulinin. waxaa loo baahan yahay arrintaas in dadka waa siman yihiin, cid ka fadli badan ama cid ka qiimo badan ma jirto ilaa bitaqwa allahi subxaanahu watacaala. watii ilaahi subxaanahu watacaala uu lahaa yaa ayuha annaas inaa khalaqnaakum min dakarin wa untha wajacalnaakum shucuuban waqabaa'ila litacaarafuu ina akramakum cinda allahi atqaakum ina allaha caliimun khabiir. ilaahay wuxuu yidhi subxaanah, dadow waan idin abuurnay, annaga ayaan idin abuurnay, lab iyo dhadig baan idinka abuurnay, kadibna waxaan idinka dhignay wajacalnaakum, waxaan idinka yeelnay shucuuban, waxaan idinka yeelnay shucuub kala duwan iyo qabaa'il ayaa idinka yeelnay litacaarafuu. xikmadda ku jirto ilaahi subxana watacaala u sameeyey litacaarafuu bay ahayd, inaad isku aqoonsataan oo abtirka iyo nasalka lagu kala ogaado. ina akramakum cinda allahi atqaakum, ilahay agtiisa waxaa idinkugu karaamo badan kan idinkugu cabsida badan. ina allaha alla caliimun mid cilmi badan weeye, khabiirun oo gun og arrimaha. kadib nebiga calayhi salaatu wasalaam dadkiibuu wuxuu bilaabay inuu la mabaayacoodo oo raggii uu la mabaayacoodo. maalinkaas dadka islaamay waxaa ka mid ahaa mucaawiyatu bn abi sufyaan iyo abu quxaafa waalid sidiiq radia allahu canhuma. abubakar aabihii ayaa ka mid ahaa maalinkaa dadka islaamay. nin ayaa yimid asagoo gariirahayo
cabsi darteed. markaasuu nabiga calay salaam wuxuu ku yidhi war isfududee hawin calayk fa innii lastu bimalikin anigu ma ihi buu yidhi boqor waxaa weeyaan cabsida iyo argagaxa iska dah inamaa ana ibnu imra'atin gabar wiilkeed baan ahay. nabiga sal alla alay slm markuu raggii la mubaayacooday wuxuu kaloo la mubaayacooday dumarkiina wuu la mubaayacooday oo wuu la dardaarmay nabiga calayhi salaatu wasalaam. waxuu kala mubaayacooday wa kunna yubaayicna calaa an laa yushrikna billaahi shay-a wuxuu ku yidhi waxaan kula mubaayacoonahayaa calaa an laa yushrikna inaynan la wadaajinin billaahi alle shay-an waxba inaynan la wadaajinin walaa yasriqna inaynan wax xadin walaa yazniina inaynan zinaysanin oo xubinkiina iyo nasi aad ilaalisaan walaa yaqtulna awlaadahunna inaysan dilin awlaadooda ayuu kula mubaayacooday nabiga calayhi salaatu wasalaam. walaa ya'tiina inaysan la imaanin bibuhtaanin hafriyo iyo been abuur yaftariinahu ay ku abuuranayaan bayna aydiihinna wa arjulihinna lugahooda iyo gacmahooda. walaa yacsiina inaysan caasinaynin alrasuula sala allahu calayhi wasalam fii macruuf wixii macruufa nabiga sal allahu alayh wasalam inaysan caasinaynin. marka waxaa weeye nabiga sal alla alay wasalam fii macruufin inaysan ku caasinayn oo waxaan macruufayn buu sheegaya nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu sheegaya o dhanba macruuf iyo khayr iyo wanaag bay ahaayeen wey. aayadaha kale ayaa kuu fasiraya wamaa aataakum alrasuulu fakhuduuh wamaa nahaakum canhu fantahuu wey. nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu amray bilaal ayuu amray inuu adino kacbada dusheedana uu ka adimo. arrintaana waxay ahayd islaamka duhuurkiisa iyo muuqashadiisa ayay ahayd iyo kacbada in la weyneeyo. nabiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu kala diray ergooyin ayuu kala diray iyo saraaya ergooyin yaan dhihin saraaya ciidamo yaryara ayuu kala dirdiray. saraayada waxaa layihahdaa waa ciidamada yaryarka ah nabigana uu la soconin sala allahu calayhi wasalam ayaa waxaa layihahdaa saraaya isdilaaxa ehlu siyarka sidaa wey. lihadmi alasnaami alqabaa'il qabaa'ishii asnaamtii ay caabudi jireen inay soo burburiyaan ayuu u diray. fahudimat waa la burburiyey asnaamtii waa lasoo burburiyey. alcuza fahudimat alcuza sanamkii cuzaha ayaa lasoo burburiyey. waxaa buriyey oo jajabiyey sanamkaas khaalid bnu waliid radia allahu canh. waxaa kaloo la burburiyey suwaac sanamkii la dhihi jiray isagana waa la burburiyey. waxaa burburiyey camr bnu alcaas. manaata ayaa isagana la burburiyey oo asnaamtii ay caabudi jireen jaahiliga ka mid ahaa. isagana waxaa burburiyey saacad bnu zayd saxaabigaas ayaa gacantiisa ku burburiyey. intaa ayaan kusoo gabagabeynaynaa ghaswadii fatxu maka. casharkan wuxuu dhammaystir u ahaa taariikhdii shala aan bixinay. marka hada wabilahi towfiiq wsala allahu wasalam calaa nabiyina muxamedi wacala aalihi wasaxbihi wasalam.